السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مروين مدنيال مقاولة الشرف له نقل صوت التلفزيون كقرنك جمهورية الصومالية وحتكون سولواتان داوديال ورئيسي خاصة والتلفزيون كقرنكو ليالنيو مدحوينها دولة فدرال كوميل جاركية الصومالية مدن الشيخ شريف الشيخ أحمد ورئيسي كانوا حنجعلها مدحوينها إن كوريسنا حالتها أمانك سياسة جاركة لحالة وضع كانوا حلقا كتيرو مدن مدحوينها هذا وكم هذا قابل على التلفزيون كقرنك ورئيسي جاركة marka hore si guud wadankeena xagee u maarayna maanta siyaasadda amaanka gargaarka xagee baan joognaa madaxweyne bismillaah alxamdulilah salaatu wasalaamu ala wada maasantahay wadanku maanta wuxuu marayaa marxalad runtii rajadeedu aad u fiican tahay amniga waxaad ka waraysaa in horumar uu ka jiro magaalada Muqdisho gobolada kale sida gobolka Shabeellada Hoose hadda la gaaray Jubbooyinka Gedo باي بقول هيران قبل هذا دمان ملها صودم وحكجرة هرمر وناكسنا كجرة وحموغنيسا إلهي فضل جيسا إن إذا ما قلب كسيدة إذا ما تأمل صوم يكون استين إن يوحك قبتان اللي باتدي شعب كهايين كوحار بحسد على الشباب القاعدة تاسنا وحي ليه كلا وحي صونا ولا نسهر الجدا شعب كصومالي ذو متدر dhibaato fara badan ugu jiray inay helaan nabad iyo kala dambeyn dhinaca siyaasadda runtii wax weyn taray siyaasadda roadmap waa laga yaabaa dad badan inay dhahaan roadmap kuma fiicnaan laakiin runtii waxaan u arkaa inuu ahaa arrin muhiim ah maxaa yeelay mar walba wuxuu abuuray wada hadal iyo wada shaqayn buuxda madaxda dawladda iyo gobolada iyo ahlu sunna wal jamaa taasna waxay keentay in lagu tilaabsado habkii looga gudbi lahaa ku meel gaarka waxaad la socotaa marxaladda ku meel gaarka ahayd gabagabeynteeda in aad loogu howlan yahay taasna waxay ka dhaamanaysaa in siyaasadda isbedel weyn oo ka jiro oo lagu tilaabsanayo مرحلات كدوان تيهرة وأنا من سنة أنا وفاء لبنان كان شعب الصومالي عادية أدبا ما حسنتها من المدحوني وحشيس تاريخي حقيقة بقى نيروبي لو كلا سيحي وهذا دوغو قرودان كذا مع درمود كاهاي حشيس كاسي محو قد جاي الصومالي ذا إيو إن هرمود كيودي سياسة أديقو أدوغو انتهى حشيس كان محو قد جاي هاي إن مرحلة ديك ميلقار كاهاي قبل قبين تيدي مرحلة مدة بيسا لسو كارسي laga heshiiyay tafaasiishii ay wax u dhamaalaayeen runtii ugu mahadcelinayaa fursadan aan ka faa'iideysanayo madaxdii kala duwaneed ee ka qayb qaadatay iyo shacabka Soomaaliyeed sida ay u taageereen iyo dawladaha caalamka ee saaxiibada la Soomaaliya runtii ayaguna gacan badan naga siinay in arrintan si fiican ay ku dhamaato marka waxay ka dhigan tahay Soomaaliya inay marxaladii ku meel gaar ka baxdo ay u gudubto marxalad caadi ah waana marxalad runtii u wanaagsan dalka iyo dadka Soomaaliyeed كنتني استيد عش مالها ساكن من وقت الربين كلا جور كودا أو جديد ماشي الربين لو فره شقة عضك بعنا إذا نهرت على مركب مدحونا كلسون أنت لك بتوقع بتاعين شقة عضك مدة كمان لو قدام ماي هذه هذا نوكرسون هاي وقت هري إن لو نمايكر شقة داس واحد هري وهم شقة عضك لكن بيس كده ويالا أضياش واجوعان جودي أبتريشن كا أضياش أنت أقول بدل ما أسكت وقبتين guddiga kale ee technicalka ah ee odayaasha la shaqeynaya asaguna waxaan rajaynaynaa bariha soo socda inaan dhameystirno dastuurkii waa la soo gabagabeeyay odayaashu waxaan aaminsanahay inay tilaabooyin fiican qaadeen dhinaca soo xulidda ergadii ansixinta dastuurka inay ugu yaraan fikrad fiican ka haystaan dadkii ay soo xuli lahaayeen baarlamaanka marka waxaan aaminsanahay waqtiga haray haddii aad aan u dadaalno in aan ku dhameystiri karno shaqada dhiman xilligan kala guurka haddaan intaan ka bixin murashaxiin badan oo Soomaaliya baa xilkan u ordaya oo dibadda iyo dalka kaga dhawaaqay qaarkood in nidaam xisbiya kuwa forum kuwa si shakhsiyan isu soo taagay 2009 markii madaxweyne lagu dooranayay Djibouti waxa laga yaabaa shaqada hadda aad qabato fikrad doonaya markii hore haysatay oo marka dadka masraxa siyaasadda ku soo socda maxay tahay sawirkaad ka siin karto culayska kursiga madaxweynimada leeyahay iyo shaqada balu sharax marka hore waxaan dhihi lahay aniga fursad weyn ay tahay in dad badan ay soo sharxaan oo la tartamo oo
magaalada muqdisho la isugu yimaado Soomaalidii yani siyaasadii la aado dhinaca tartanka oo laga leexdo dhinacii duminta iyo dhibaataynta waxaan jeclaan lahaa inuu noqdo tartanku tartan nadiif ah oo muujinaya barnaamij siyaasadeed iyo wax qabad oo aan cidna dhibaataynaynin haddii aan aado dhinaca Djibouti marka aan joogo fikradda aan ka qabo runtii aad u kala duwan tahay Soomaaliya dawlad caadiya wali ma aha waxa la tacaamulaya mashaakil aad iyo aad u tiro badan waxa la tacaamulaysaa dhaqaale la'aan waxa la tacaamulaysaa dal burbursan waxa la tacaamulaysaa institution aan awood badan u lahayn wixii loogu talagalay inay qabtaan waxa la tacaamulaysaa dad Soomaaliyeed oo dhaawac kala gaaray oo u baahan in dib loo isugu celiyo marka dhinaca kalena Soomaalidu waxa moodaa siyaasadaba madaxweynaha ka bilaabatay loo wada qaatay oo walba hadduu madaxweyne noqon macnaheedu waxba ma qaban laakiin haddana waa fursad dadku inay tartamaan oo fiicanta inta ka bixin mas'uuliyadda ama kursiga madaxweynimada culays ku leeyahay hadda waxaan jeclahay dawladda inay xusuusiyo واللبدي هبني ما دمبه نيروبي بان جوجنا أو طبعا أي سومالي أما جالية أما قحوتيان بس نظام نوع عسى يكون جوجنا ولا غيابين حمر حتى يكون على سبلان تاي نيروبي إن هدنا حل جنو حافظ مدن إن كيوبا لو كتيرا إن ضد بدن باب العين عربين أركان إن أنا نحل جاس كيوبا كسوجرنا ولكن الحين يعني الشقوين فرصتها بس عادها هذا ضد كوفا سيرتو مالتي يوم كاغا ما أنت شقة عقبته يو ساعدها فرصة لهذا هاي ساعدها سياحتي runtii Soomaaliya dal burburay oo dhibaato ku dhacday marka qofka mas'uulka waxa ku khasban yahay isku day inta uu juhdi bixi karo inuu bixiyo marka shaqooyinka la qabto waa shaqo rasmi ah oo shaqooyinka dawladda amnigii siyaasadii horumarintii dalka iyo wixii mashaakil oo jira sida la xalinayo shaqooyinkaas waa shaqooyinka rasmiga shaqooyinka kalena waxa ay cabashooyinka dadka iyo dadkii in la arko oo la dhageysto su'aalaha isweydiinayaan looga jawaabo labada shaqo ayaa sida badan aala isdul saaran waxa dhacaysa marka in maxay ahayd shaqadii maanta aad ku tala gashay lagu jibaarkeeda maalinkiiba inay ku soo fuusho taas waxay kalifay waqtiga aad ku tala gashay inaad shaqayso mar walba ay kala fogaato marka go'aanka aad qaato waxa uu noqday yani in waqti badan aan gelino si wax u soo baxaan alxamdulillah hada meel fiican wax la soo gaarsiiyay talada dadka iyo marka naftada la sheekaysto waxa is leedahay waqtiga xaddi dadka matqaan la kulmaysa xaddi shaqada aad qabanaysa xaddi laakiin hadana mar walba shaqo aan laga seexan karin oo u baahan in la qabto aad arkaysa oo maanta hadaad sii dayso bari waqti ka badan ka qaadanaysa marka shiraaqadu runtii aad u yartahay waqtiga inta ugu badan shaqada lagu bixiyaa waxa la dhihi karaa habeenii maalin si isu dhow ayaa loo shaqeeyaa waqtiga طبعا bani aadam la yahay waa lagu khasban yahay waqti in la nasto laakiin runtii waxaan dhihi karaa saacadaha la nasto waa kooban yihiin marka saacadaha aad nasato qudhooda hada soo leeyahay iyaga maxaa qabataan maxaa ku nasataan xilliga hadda habeenkii oo kale mesela marka shaqada laga baxo waxa laga yaabaa yani caad ahaan in lagu gaaro 7 saac mararka qaarna waxa laga yaabaa 9 saac gaarto mararka qaar waagu inuu ku bariyo waxay raaseexatid subaxdii marka salaada dukata hadana waxay raa ku laabatid 2 saac 3 saac hadana shaqo kale ku laabatid laakiin caadi ahaan waxay iskaga badan tahay sida caadiga 7 saac ku tala galay aan ay ka dhamaato shaqada kadib salaad subax markii la dukado xoogaa hadana aan ku laabto 2 saac aan soo diyaar garoobo marka shaqada routiinkeeda caadiga ka soo badan aad ma santa intaan madaxweynaha ama hasan yani ka bixin maamulaadkaaga iyo arrimaha ku saabsan dadka faaleeya dabciga waxay leeyihiin madaxweyne Sheekh Shariif waa mas'uul ama madaxweyne tanaasulaad badan oo aad u tanaasul badan marka waxay leeyihiin waxyaabo badan waajibaadkiisa awoodda madaxweynaha inuu isticmaalo bal laga yaabaa inuu tanaasulaadkiisa daraadid u daayo sidaas daraadeedna shaqooyin badan oo madaxweynaha laga rabay ay halkaas oo kale laga yaabaa in tanaasulkiisa daraadid marka sidaas ma soo taqaanado dadku runtii waxa laga yaabaa duruufta dakhiliga ah hoos inay aad ula socon laakiin waa dhab waxaan isku dayaa in aan wax kala jiidasho wax nooga burburin maxaa yeelay waxa aan diiradda saarayno waa guul inay gaarto Soomaaliya muddo badan aan laga maqayaa dawladnimada 20 sano marka waxa laga yaabaa qofka dadka kula shaqeynaya mararka qaar in ay u muuqdaan in wixii aad loo kala jiido oo wixii markaas ay dumaan madaxdana gaar ahaan qofka dalka hogaaminaya
waxa laga rabaa in mararka qaar uusan u muuqanin qof awoodiisa dhamaanteed isticmaalay Soomaalidu waa iska taqaana waa dad aad u xasaasiyad badan dhinaca awoodda iyo madaxnimadana cuqdad badan ka qaba marka haddaad mar walba muujisid inaad tahay madaxweyne awoodiisa dhan isticmaalaya oo waxa laga yaabaa wada shaqeynta inay xumaato marka aniga runtii waxaan diiradda saarayay in dulqaad iyo isku wad iyo marxaladan ugu gudubno laakiin runtii in qof walba mas'uuliyadkiisa uu ku xadidnaado lana wada shaqeeyo waxa dawladnimadu ay nafarayso وانا رجينا إن المستويات ولا قارن. أد بدو ما حسنتها مثلا وحين. أشار على سؤالي كلا شقوين كأن ودنا كتاعنا وصل لابتو. أن وضع قبل الله بدنا مدقمين بدنا وضع كمل على الحرية أنتي واللي بسنة كي قدام بي وحكي بي كبار العقول وشقاء علوس أو حقيقة أنا لنكري كرينا وبعش عالمنا قصتها ولا قبتها. أن سيدا حرية أسعته عدتك وقنا حسينين سلوك بكم موجنا يعني حسلينتي أو حرية الحرية ده وسعته. مركا maxaa arinta keenaya masalaqata ra'yiga dadka qaban noocaas ila xad waxaan isleeyahay warkaas waxa ka jira sababtuna waxa weeye xasilinta iyo xoreyntu laba shay xasilintu waxay ka koobaysaa mashruuc balaaran waxay u baahan tahay adeegyadii nabadgelyada sida booliskii nabad sugidii iyo maxay ahaato maxkamadii maamulkii abaabulkii dadka isku xirkoodii waxay ka koobaysaa isbitaaladii iyo iskuuladii iyo jidadkii iyo korontadii in la helo waxay ka koobaysaa in dib loo dhiso meelo badan oo dadka loogu adeegi lahaa taas marka waxay u baahan tahay kharash fara badan iyo qorshe weyn muddo dheer waxaan ku guda jirnay in aan dawlado badan kala hadalno in arrimahaas gacan naga siiyaan dadkuna waxa laga yaabaa mararka qaar inaysan aad u fahmin xiriirka u dhaxeeya xoreyn iyo xasilin in aad loo fahmo marka waxaan ka diyaarinay mashruuc aan ugu talagalnay 3 bilood oo soo socota mashruuc xalaan ka hadlay oo meel badan taabanaya maxaa yeelay saldhigyada booliska burbursan yihiin degmooyinka burbursan yihiin maxkamadaha burbursan yihiin intaas waxaa si dheer kabaadirtii shaqay lahayd yani dadkii shaqay jiray ma shaqeeyaan hadda in la helo dad dhalinyaro ah oo loo tababaro dadka hadda jaamacadaha ka soo baxay ama wax bartay in loo diyaar gareeyo inay shaqooyinkaas qabtaan maamulkii maxkamadihii ciidanka laftigiisu wuxuu u baahan yahay tayeyntaas waxay ka imaanaysaa tababarka iyo qalabaynta marka waa mashruuc aad iyo aad u ballaaran orod badan ugu jirnaa dadaal badan runtii in la kaalmeeyo waa jiraan dawladaha hadda bilaabay mashaariicda sanadka anaga sida Mareykanka oo kale mashruuc xasilinta waxay ka bilaabeen magaalada Muqdisho magaalooyinka kale sida hadda Bay iyo Bakool iyo maxay ahayd Hiiraan iyo hadda kulli waa maqasho umaleena shirka lagu qabtay Djibouti yani ujeedadiisu waxay aad mashruucaas marka waa mashruuc ballaaran laakiin waxaan aaminsanahay inuu oo hirgeli doona insha Allah tabaaraka taala aad baa mahadsantahay isla arintaas xasilinta iyo xoreynta xiriir la leedahay al-shabaab dadku hadda sida muuqata waa laga adkaaday dabcan waxaana dadku leeyihiin waqti yar kadib taariikh way noqon doonaan laga sheekeeyo xilli bay jireen la dhiraa marka al-shabaab ma istaahilaan cafis madaxweyne ahaan dad waxay leeyihiin sida South Africa haddana madowinta suxna isugu laayeen badan markii dambe cafiska intuu dhaxmaray ay wada nool yihiin dadka Soomaaliyeedna waxay leeyihiin uu ku taalooyin maadooyin bay nagu sameeyeen oo aad dadka dhibaato u geysteen marka adigu madaxweyne ahaan al-shabaab sidee loola macaamilayaa kuwa aan soo dhiibinay laga adkaaday guud ahaan al-shabaab waxay galeen dambiyo waaweyn dalkooda iyo dadkooda diintooda ka galeen marka dawladnimo iyo qaran dhisidiisa laga hadlayo cafisku mar walba waa laga maarmaan laakiin cafiskaas oo cid uu qusaynayo waa inay caddahay dad waxaa jira amarnaba la fikir oo dambi noqonaysa inaan cafinaano la cafinayo shacabka ka imaan karta مثلا dadka hogaamiyahay ama dadka dambiyada dadka la yaqaan oo dambiyada waaweyn geystay ma fikro dadkaas waxa laga maarmaan inay maraan cadaalad laakiin dadka kale oo la hawl gashaday ama ka ahay ciidan ama wax lamid ah xafis loo fidiyo waa laga maarmaan sababta waxa waaye waxa la rabaa in looga soo kabto dhibaatadii degdeg marka dad badan oo adeegsanayeen in la soo celiyo oo dib u maxal la dhihi jiray dhaqan celin lagu sameeyo si ay uga mid noqdaan bulshadaas loona diyaariyo mustaqbal fiican waxay ka mid tahay qorshaha dawladda marka waxaan aaminsanahay cafigu ma noqon doona mid yani cid walba ay ka faa'iideysan karto laakiin waxa dhici karta xataa kuwa aan sheegayno in
كخفيفات دنبيده دو قفك السوديبه waxaan rabaa inaan ku gabagabay mawduucaas mar walba waxa kala duwanaanay qofka issoodiiba iyo qofka la soo qabto waxa mari doona يعني مثلا عقابته لو تلقى iyo procedure keedii laakiin qofka issoodiiba mar walba ka duwan dhawaan bangiga adduunku mudan madaxweyne wuxuu ku eedeeyay madaxda dawladda ku meel gaarka Soomaaliya in la lunsaday ama aan xisaab celinteeda la haynin adduun lacagadu gaaray ilaa 130 milyan muxuu yahay ficilka eedaas aad madaxweyne ka jeedinayso iska cadahay hadalkaas oo hadal ku dhisan ma aha macluumaad sax ah waa hadal loola jeedo in lagu dhaawaco dawladda loola jeedo marxaladan lagu soo sadad waay 120 milyan soo ma gelin dalkan waa laga diray dhaqaale inuu soo galo cid kasto isku dayda inaan caawisana waxaan ognahay culays la saaray inaysan Soomaaliya kaalmaynin dal burbursan oo la rabo dib in loo dhiso waa in loo helo dhaqaale lagu dhiso adduunka waxa la dhunsadaa malaayiin doolaraad cid ka hadasho malaha Soomaaliya sanad kasta waxa la dhahay bilyan isa ku baxay xisaab celinteeda cid haysa ma jirto annaga waxaan diyaar u nahay ciddii og lacag la dhunsado inay noo timaado noo sheegto waxaan kala shaqeynaynaa in gunti la gaaro loo soo bandhigo shacabka Soomaaliyeed loo soo bandhigo adduunka maxkamad cadaaladna la saaro laakiin waxaan hubaa macluumaadkaas inuu san macluumaad ku fadhiya maxay ahayd waaqi dhaba inuu san ahayn طبعا dal burbursan oo hay'adihiisa ay burbursan yihiin maamul xumo waa imaanaysaa laakiin waxa aan rabo inaan sheego waxay yihiin يعني xilligii mataqaana Djibouti aan ka nimid ilaa hadda horumarka maamulka dhaqaalaha uu sameeyay ma jiro hadda xilligan dambe dhaqaale dawladda soo gala ilaa waxa uu maraa bankiga waxa ka warhaya xisaabiyaha guud hay'adaha dawladda oo dhan ka warhaya taasoo mid hore u jiri jirta ma aha waxa kor loo qaadaa dakhliga ka soo gala dekada mid ka soo gala garoonka laakiin haddana ma diidayno in ay ma karaan in cid wax ku dheelaysa ay jirto laakiin maxaa u baahanahay in dawladii gacan laga siiyo oo leeyahay xaggan waxaan ka hadlaysan xaggan waxaan laga hagaajiyo laakiin in riboor aan sal lahayn la qoro ayadoo aan ognahay waliba riboorka salka looga dhigo waxa ahay yani waa la heli karay waa la sameey karay waxyaabo badan oo aysan fahamsaneen adduunka jiro oo caqabado dalka ku jiro oo kaga baahan in ay xalisid si degan مدن مدحوينه ودنك Soomaaliya hadda marxalad oo marayo xaqiiqatan waa marxalad aad u muuqato soo kabasho inay ka muuqato oo dadkii qurba joog ahaa oo diaspora ah dalka dib ugu laabanayo oo maalintii ilaa 5 falaay ama 5 duulimaad baa caasimada ka degaya yani noloshii asaasiga inay bilaabataan mooda sidoo kale to saaxiibo badan bay Soomaaliya wadamada caalamka ku yeelatay oo aan awal inta badan aan laga filan karin sida Turkiga oo kale marka ka faa'iideysiga dadka Soomaalida ama doorka dadka Soomaalida ku leeyihiin xiriirka ay beesha caalamku ay Soomaaliya yeelanayso iyo saaxiibada cusub ee Soomaaliya ku soo kordhaya yani muxuu yahay doorka shacabka iyo dawladda laga rabo sida u sheegtay calaaqaadka Soomaaliya ay leedahay adduunka runtii wax badan iska bedelay ama ha noqdaan dawladihii hore xiriirka loo la jiray ama kuwa cusub hadda sida ka dhawaajisay Turkiga oo kale runtii dadaal badan lagu bixiyay maxaa yeelay xaaladda Soomaaliya ku jirto waxay u baahan tahay dawladda saaxiiba oo gacan siiya dawladaha ama xataa kuwii aad maleynaysid inay colaad u hayaan in ugu yaraan la keeno meel dhexdhexaad oo ay u dareemaan inaan Soomaaliya dhibaato uga soo soconin inay suurtagal tahay calaaqaadku inay yani horumar sameeyaan shacabka Soomaalida marka waxa haboon inay gartaan ayaguna kullama calaaqaadka u dhaxeeya dawladda Soomaaliya ee dawladaha kale hore loo mariyo masaalix badan oo Soomaalida ay leedahay la gaara waxa imaanaysa yani waxa jiraan ognahay hadda masaalixda Soomaalida difaaca dawladda difaaca xiriirka iyo calaaqaadka la sameeyo dartooda ayaa jira marka xiriirka dawladuhu waa muhiim waana jaanib naga maqnaa oo runtii aan ku baraarugnay aan dhihi karnana Ilaahay waafaji subhanahu wa ta'ala meel fiican oo soo gaaray marka in shacabka iyo dawladdu ay aadaan yani xiriirkaas wanaagsan xoojintiisa عادية marka hadii aad waxa laga yaabaa hadda shacabka Soomaaliyeed inta badan maadaama dad inta badan Soomaaliyeed iska yihiin xilligan dad iyagu baahan oo laga yaabaa markasta in saaxiibtinimada wadan u baahan yihiin ma jir wadamo qofka muwaadinka Soomaaliga caadi waxa laga yaabaa inuu kala aqoon wadamada inuu challenge ama saaxiibnahay wadamada siyaasad ahaan aynan isku wanaagsanayn oo laga yaabaa marka
qofka Soomaaliga maadaama inta badan Soomaalida immigration-da ama lamaha socdaalka ay ku dhibtoodaan fikrad wanaagsan kama haysto wadamada calaaqaadka wanaagsan la leh ee Soomaaliya caawiya dawlad ahaan iyo shacab ahaan iyo wadamada kale marka fikradeeda ka saarantaas aan ka bilowdo marka hore qofka Soomaaliga ama qof walba muwaadin ah dalku rabaa u dhasho markuu dalkiisa ka baxo wuxuu noqonayaa safiir dalkiisa yani dalka uu tagayo waxay fiirinayaan sida uu dhaqmayo qarankiisa doo fiican yahay waxa loo qaadanaa dadka uu ka yimid dalka uu ka yimid inay fiican yihiin doo si xun u dhaqmo sidoo kale marka hore inaan ku baraarugsanahay inaan mar walba la nimaado dhaqan xun waxa hadana muhiim ah meesha aad tagayso dhaqanka dadku ay leeyihiin maxay jecel yihiin maxay neceb yihiin inaad thaqaafadooda ilaa xad ma la socoto waa huba dad badan oo Soomaaliya waa ku adagtaa inay dawlad kasta fahmaan sida ay tahay laakiin haddana waxaa jira dawlado saaxiibnimadooda ay joogto tahay u arka Soomaaliya dad walaalahooda laga maarmaan tahay inay gacan siiyaan waxaa jira dad kale oo ayaguna mataqaana saaxiiba ah u arka cunsurka Soomaaliga cunsur wanaagsan uu yahay dhibaato uu la kulmay in la wanaajiyo ay laga maarmaan tahay waxaa jira kuwa kale oo dhibaato ka soo gaartay argagixisada iyo waxyaabo la mid ah shoogsan markay arkaan qof Soomaaliya laga yaabo inay tasarruf aan sax ahayn ku tasarrufaan marka qofku hadduu fikrad ka haysanin marka uu dalka tagayba muaamalada uu la kulmi doono iyo muaamaladaas marka uu la kulmo waxa radu ficilkiisu naga doono haduusan maskaxaan u diyaarsanayn waxa laga yaabaa in ay dhibaato ka dhalato dhibaatadaasuna ay ku soo laabato dawladda laftiga madaxweyne waxaan jeclahay waraysigeena soo gabagabayno su'aal yar waxaan jeclahay aan ku weydiiyo si guud u dhacaysa muddo hadda ilaa 2009kii horaanteedii ayaa xafiiska madaxweynimada Soomaaliya joogtay go'aamadii ugu adadkaa ee ku soo maray xafiiska mid iyo labo oo aad ka labayso tilma samaysaa ma ayaa markii dambe ama guul ku dhamaaday marka waxaan jeclahay inaad barantaas aad waa adagtahay runtii inaan hadda kala saaro sababtoo mar walba go'aano adag la isaga dhex jiray marka badida ay badan yihiin darteeda iyo inaan u soo diyaar garoobo su'aashaas mar kale ay iga dhigaysaa aad iyo aad ayuu mahadsan yahay madaxweynaha dawladda federaalka ku meel gaarka ee Soomaaliya mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo si gaar ah ugu warramay telefishinka qaranka Soomaaliya. Allah yarxamah.